السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وعن صاحب يال ومقال ميديا وينسو قدبين ساوركي قدن بي أرمها الصومالي عالمك وضبدا داون دونتان نوحا كمدا صوماليا الله أقلادين يهب إيبستو إماراتك إيا السعودية أو كوال ولسن هناك الدين عفينة الصوماليا ولا سوق رقبية إتوبيا وقعنتا كودكتي هب شرع الدراء هالكي لغالها هب كاس يا سلو ذي حوغا ياني ذي كجاهنا mareykanka oo shaaciyay sababta uu u dilay Bashiir Qorgaab IMO oo soo dhaweysay tallaabo ay qaaday dawladda Soomaaliya maxay tahay tallaabadaas iyana waa daawan doontaa iyo aqalka cad oo la kulmaya shirkadaha waaweyn ee dhanka tiknoolajiyada si xal looga helo fayraska corona u diyaar garooba saaxiibayaal daawashada warkaas oo dhameystiran aynu ku bilowno Soomaaliya ayaa loo ogolaaday in hub loo dhoofiyo iyadoo dawladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo dalalka kale cadawga ku ah jiritaanka Soomaalida ay walwal xoogan ay wajahayaan imika. Soomaaliya ayaa waxay ka mid tahay dalal ku yaala qaaradda Afrika oo shirkadaha Australia loo ogolaaday inay hub u dhoofiyaan sida lagu daabacay wargeyska afka dheer ee The Guardian. Ogolaanshiyaha oo qalinka lagu duugo sanadkii hore ayaa waxaa muuqanaysa inay haatan soo ifbaxday sida laga soo xigtay warbixinta jaraa'idka shirkadaha wadankaas ayaa kaliya haysta ogolaansho 5 jeer ah balse waxa looga baahan yahay in markii ay dhoofiyaan hubka ay dib ugu soo laabtaan gudaha Australia. wadamada kale ee liiska ku jira waxaa kamid ah Liibiya, Mali, Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika iyo Koongada Dimuqraadiga ee DRC. wasaaradda difaaca Australia ayaa bixisay ruqsadaasi. badi dalkaas waxaa ka aloosan xaalad colaadeed iyo xasilooni daro sababtay barakac baaxad leh iyo macluul daran. warbixinta ma aysan soo bandhigin magacyada shirkadaha loo fasaxay inay ka macaashaan hub ay u iibgeeyaan Soomaaliya. Paul Ronalds oo ah madaxa fulinta hay'adda Save the Children Australia ayaa cod dheer ku soo jeediyay si degdeg ah loo joojiyo hubka loo dhoofinayo wadamada Soomaaliya iyo Mali kuwaas oo la aaminsan yahay in ay xogahaas hay'adda u gudbiyeen wadamada Imaaraadka iyo Sacuudiga oo ka soo horjeeda awood ay yeelato Soomaaliya iyo in qarimadii dalka dib u soo laabato. waxaa loo baahan yahay in la xisaabtamo shirkadaha hubka ee Australia ayuu hadalkii ku daray isagoo u waramay isla majaaladan iyadoo arintaas ay digniin uga soo saartay qaramada midoobay. haddana Soomaaliya waxaa saaran xayiraad dhanka hubka ah taas oo dawlad walba ay ku dadaalayso sidii u soo afjari lahayd. shirkadaha hubka Australia waxaa lagu tilmaamay kuwa ka macaasha qalabka military iyo hub ay u iibgeeyaan dalalka ay colaaduhu ka jiraan walow ay diideen eedeynta inay sharci darro yihiin. dawladda Soomaaliya ayaa haddii hub ay soo iibsato waxaa markaasi u suurtagelaysaa in qaybo badan oo dalka ay gacanta ku dhigto kuwaas oo ay maamulaan xarakada Al-Shabaab sidoo kalena ay isaga dhiciso hubkaas wadamada cadawga ku ah Soomaaliya oo mar waliba u soo maleega dhagar kaga imaanaysa Soomaalida oo ay lacag fara badan ku soo faraqaan. dhinaca kale Mareykanka ayaa shaaciyay sababtii ay u dileen Bashiir Qorgaab. taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa waxa uu shaaca ka qaaday sababta soo dadejisay dilka Bashiir Qorgaab oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee xarakada Al-Shabaab. Christina Gibson afhayeenka Africom ayaa u sheegay Military Times in Qorgaab uu door weyn ku lahaa duulaanka ay kooxdaas ku qaaday xerada Mandabay ee gudaha wadanka Kenya. xerada Mandabay oo ku taala gobolka Lamu ayaa la beegsaday bishii Janaayo ee sanadkan 2020 waxaana lagu dilay 3 Amerikaan ah xilli lagu burburiyay diyaarado dagaal iyo qalab kale. Gibson oo hadalkiisii wata ayaa cadeeyay inay ugaarsan doonaan sidoo hadalka u dhigay horjoogayaasha Al-Shabaab ee wax ka naqshadeeyay weerarka Mandabay kaas oo su'aalo badan dhaliyay. Qorgaab ayaa 22 Febraayo 2020 waxaa lagu dilay duqeyn ka dhacday degmada Saako ee gobolka Jubbada Dhexe kadib duqeyn cirka ah oo ay ciidanka Mareykanka halkaa ka fuliyeen. tan iyo bilowgii sanadkan 2020 Mareykanka ayaa Soomaaliya ka geystay 26 howlgal oo cirka ah. 2019 wuxuuna qaaday 63 halka 2018 uu fuliyay 49 weerar oo dhanka cirka ah. iyadoo uu dhashay sanadkii 1980 Qorgaab oo aad ugu dhawaa hogaanka xarakada Al-Shabaab ee markaas waa hogaanka gacan saar kala leh Al-Qaacida
ayaa geeridiisu waxay saameyn kartaa meelo badan oo kooxda dhexdeeda sida ay muujinayaan macluumaadyo dhinaca muqaabaraadka. waxa uu ahaa abaanduulaha guud ee maleeshiyaadka xarakada al-shabaab si lamid ah waxaa la tibaaxay inuu ahaa madaxii howlgallada ee dalka Kenya halkaas ururka ka fuliyay howlgallo xooggan. Mareykanka ayaa sheegtay in dilka Qorgaab ay tahay guul u soo hooyatay sidii hadalka u dhigeen. dhinaca kale dowladda Itoobiya ayaa gacanta ku dhigtay hub sharci darro ah. saraakiisha ciidanka Itoobiya waxay u sheegeen telefishinka dowladda Itoobiya inay qabteen container uu ka buuxo hub sharci darro ah oo loo soo marsiiyay dhinaca dekedda Jabuuti. saraakiisha waxay sidoo kale sheegeen inay rumaysan yihiin in hubkan laga soo dhoofiyay dhinaca Turkiga isla markaana ay Itoobiya soo galiyeen kooxo caalami ah oo ka ganacsata hubka sharci darrada ah sida laga soo xigtay warbaahinta. hubkan waxaa ku jiray ilaa 18,000 oo bastooladood waxaana qiimihiisa lagu qiyaasay 13 milyan oo dollarka Mareykanka. saraakiisha waxay ka dhawaajiyeen inay qabteen 24 qof oo looga shakisan yahay hubka. laba ka mid ah dadkaas waxay u dhasheen dalka Suudaan. dowladda Itoobiya ayaa tilmaantay in baaritaano ay ku wadaan hubkaas cid lahayd iyo halka loo waday. dhinaca kale hay'adda badaha caalamiga ayaa soo dhaweysay tallaabo ay qaada dowladda Soomaaliya. IMO oo xaruntooda dhexe ay ku taalo caasimada dalka Britain ee London waxay soo dhaweeyeen dhameystirka turjumista xeerka badaha Soomaaliya ee lagu sugayo badqabka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee dhammaan maraakiibta marinkoodu yahay badaha Soomaaliya. hadal qoraal oo ka soo baxay hay'adda IOM oo ay xubno ka yihiin 174 wadan iyo 3 ururo ay wada shaqayn leeyihiin ayaa lagu sheegay in horumarinta nidaamka badaha Soomaaliya ay tahay tallaabo hore loo qaaday laguna soo dhameystiray xeerka badaha Soomaaliya. qoraalka IOM waxaa kaloo lagu xusay in 6 sano qaadatay howlaha lagu diyaarinayay xeerka badda Soomaaliya oo ay taageereen hay'adaha iyo xafiiska qaramada midoobay ee taakulaynta howlgalka Soomaaliya AMISOM. horumarinta xeerka cusub ee badaha Soomaaliya waxa uu bilowday sanadkii 2014 kadib markii ay dowladda federaalka Soomaaliya ka codsatay hay'adda badaha caalamiga ee IOM inay ka taageeraan sidii dib u eegis lagu sameyn lahaa xeerkii hore ee badaha Soomaaliya ee la qoray sanadkii 1959. hay'adda IOM iyo xafiiska UNSOM waxay kala shaqeeyeen dowladda federaalka sharciga iyo tababarka farsamo ee lagu taageerayo saraakiisha maamulka badaha muddadii uu socday kulanka shaqo ee bishii Janaayo ee sanadkan lagu qabtay xarun goboleedka tababarada ee ku taala Jabuuti. la socodka dhaqdhaqaaqa maraakiibta waxa uu dal kasta ogolaanaya mas'uuliyadda heshiisyada badaha caalamiga sida caalamka dalalka ay maraakiibta ku safraan dekedda iyo dalalka xeebaha leba. xiriiriyaha goboleedka hay'adda badaha caalamiga ee bariga iyo koonfurta Afrika Dave Mulle oo ka qayb galay munaasabad bishan 9keedii lagu qabtay magaalada Muqdisho waxa uu ka mahad celiyay sida ay dowladda federaalka Soomaaliya uga go'an tahay badqabka maraakiibta ka gudubta meelaha ka baxsan xeebaha Soomaaliya. munaasabadaas waxaa kaloo ka qayb galay wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Maryan Awees Jaamac, wasiiro, xildhibaano iyo khubaro ka socday hay'adda IMO, UNSOM iyo howlgalka midowga Yurub ee Soomaaliya ee AUCAP. ugu dambeyntiina aqalka cad ayaa la kulmaya shirkadaha waaweyn ee dhanka tiknoolajiyadda si xal loogu helo fayraska corona. aqalka cad ayaa kulan la yeelanaya shirkadaha ugu waaweyn dhanka tiknoolajiyadda si looga doodo sida ugu fudud ee loo hakin karo faafitaanka fayraska dunida saameeyay ee coronavirus kaas oo ku dhacay 1,000 qof gudaha dalka Mareykanka iyo in ka badan 100,000 oo qof oo dunida oo dhan. xafiiska sayniska iyo tiknoolajiyadda ee aqalka cad iyo wakaaladda wararka Reuters u xaqiijiyay in shirkan ay qayb ka yihiin Facebook, Google, Amazon, Twitter, Apple iyo Microsoft Group. kulanka waxaa shir gudoomin doona madaxa tiknoolajiyadda ee aqalka cad Nigel Kratis iyadoo qaar ka mid ah shirkadahana ay uga qayb qaadan doonaan qadka telefoonka sida uu sheegay aqalka cad. shirkadaha ka qayb galaya shirkan ee aqalka cad sheegay wali wax war kama soo bixin. aqalka cad ayaa sidoo kale waxa uu kulamo la qaadan doonaa shirkadaha diyaaradaha, kuwa dhaqaalaha iyo hay'adaha caafimaadka si loo xakameeyo faafitaanka coronavirus.
وهاجاك صاحب بيال جودهنا وحان intaas kusoo gabagabeynayna warkii ka daawanayseen shabakada Sultanka TV wadna kuma santiin daawashada la socodka warkeena warka intaan dib ugu kulmi doono warkaan warlaacayna saaxiibayaal waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.